السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada Funding Next oo aynu ka duubano muuqaalkii akoonkii evaluation-ka ahaa. Hore waxaan soo duubnay akoonka loo yaqaano Stellar oo aad YouTube-keena ka daawan kartid. Haddana waxaan duubaynaa akoonka loo yaqaano evaluation. Labada akoon ayaynu shirkaddan Funding Next aynu ka qaadan doonaa. Laakiin akoonka saddexaad ee Express la yiraahdo isaga kuma qancin totally. Cidna kulama talin lahayn inay qaadato muuqaalna ka duubmaayo. laakiin labadan akoon ayaa ugu muhiimsan gaar ahaan Stellar oo ah akoon aan wax magaranaysa timekiisu aan limit ahayn oo waqtiga doontada baasin kartid waqtina lagu qabanayn. kan evaluation wuxuu ka duwan yahay kaliya waxa weeye waqtiga. evaluation kani isagu waqti baa lagu qabanaya labada Facebook waqti buu leeyahay. waqtigaas haduu ka dhaco aad faa'iido ku jirtid 14 maalmood oo extension lagu sameeyaa dad khasaaro ku jirtid akoon ka xidhmaya. laakiin kan Stellar-ka isaga waxaas ma jiraan wax time ah oo lagu qabanaya ma jirto. xilliga aad baasisid ayuunba akoonka lagu siinayaa fundka. marka evaluation akoon haddii aan click siino waxay noo soo baxaya shaashada saan u eeg. waa kan halkan ku sharaxayaa laba face baa la maraa akoonkan evaluation-ka loo yaqaano. halkan hoose ayaynu sharaxaad guud ku geli karnaa. daily loss-kiisu waa kan daily down down 5%. after down down kuna waxa weeye 10%. sidoo kale profit target marka koobaad waxa weeye 10%, phase koobaad iyo phase ka labaad oo ah 5%. by weekly labadii week mar baa lacagta laga bixi karaa. lacagta shaqaysatay deen hoos socono akoonada dulix kuma ka bilaabmaya ilaa 200 oo ayuu akoon ah ayaad heli kartaa. profit share-ka marka dheema phase-ka aad ka gudubtid labada challenge marka gudubtid 15% oo profit ah oo lacag real ah ayaa lagu soo dirayaa sida akoonkii hore Stellar-ka ahaa oo labadaas ka mid ka yihiin. marka lacagtii aad challenge-ga iyo verification ka gudubtay ayaad faa'iido ku leedahay. shirkadii hore waxa ma aqoonin oo lacagtaas already waa lacag imtixaan ka gudubtay. laakiin tan way ka duwan tahay. kom qolkuna kala tusaale ahaan dad qaatay marka 10% ku dartay markii dambana 5% ku dartay intaas oo isku ka geeyay oo 15,000 ama ka badan noqon karta ayaa 15% laga siinaya oo faa'iido ka dhowr kuma noqon karta 3 kuma gaari karta waana ka badan karta. halkan 14 days extension waxa weeye 14 maalmood ayaa lagu darayaa haddii aad akoonkaaga soo faa'iidooyin uu kugu jiro oo ka dhaco waqti. marka ha ka warwarin haddii waqti ka dhaco aad faa'iido ku jira 90% profit share ay bixiyaan waqtiyada aad haysan kartid weekendiga iyo overnight-ka labadooda haysan kartaa. haddii aan halkan nimaadno waa halka laga doorto akoonka markaad buuxsanaysid waxaa muhiim ah inaad waxaan kala dooratid. marka platform-ka inna waan rabno MT4 ayaan dooranaynaa. brokeradana kan baan dad kula taliyaa 8cap ayaynu click siinaynaa. hoosman kadibna u soconaynaa. halkan waxaa ka dooranaysaa swap free ama swap. marka inaga akoon swap baan rabnaa maadaama aynu dad muslimaan nahay akoon bila riba ah. marka swap free ayaad click siinaysaa kadibna waa kan akoonadii ay bixiyaan waa 6,000, 15,000, 25,000, 50,000, 100,000 iyo 200,000. halkan akoonkan Stellar-ka iyaga way iskaga mid. halkan oo dhan profit share-ka challenge phase waa 15%. inta akoon baa isku mid. profit target waa 10% waa isku wada mid. profit target-ka labaad evaluation akoonka phase-ka labaad waa 5% waa isku mid. daily loss waa 5% iyo 10% overall down down-ka ah. halkan wuxuu sheegayaa balance basic waxa weeye akoonkaagu haddii uu 100,000 yahay oo 5% lagu ogolaa inaad maalintii khasaartid. haddii aad 5% oo kala ku sii dartid maalinta 10% aad maalinta khasaartid 9% aad khasaartid aan soo qaado saahan akoonka xidhmaayo. daily loss-kaasi marka soo kordhaya marka soo faa'iido ku dartid 5% ma taagnaanayo. waa sidii shirkadii hore ayuu ka duwan yahay. waa kuwa waqtiyada lagu ogol yahay. phase 1 waxa weeye 4 weeks oo bil kan oo 2 bilood lagu ogol yahay. maximum trading days-ka 5 maalmood haddii aad trade galaysid ayaa lagu siinayaa akoonka oo realka aad gaaraysaa.
tusaalahaan haddii aad labada Facebook ama Facebook ka gudubtid 2 maalmood waan sida xasho kale aad ku darsatid 5% maalmood 5 maalmood markaa ayaa akoonka lagu soo diri doonaa commission ku intan isku wanaagsan yahay profit split kuna waa 90 waxyaabaha lagu ogol yahay newska kamida weekendiga waad haysan kartaa tradeadaada advisor expert ya magarasa akoonka u dhiman kartaa copy trade waa aqbalaya oo ogol yihiin research.com haddii akoonka uu ka gubto kale research sameeysid 10% qiimo dhimis ah ayaad helaysaa refundable fee-giisuna waa soo celinaya oo marka labada charge ku ayaa lagu soo celinaya kala kan akoonka 60,000 akoonka 15,000 akoonka 25,000 akoonka 50,000 akoonka 100,000 iyo akoonka 200,000 halka markaynu marayno akoonadii ayaad ka dooran doontaa kii aad rabtay inagu saada soo qaadno akoonka 100,000 oo kala ah halkan get fund ay ku qoran tahay ayaad click siinaysaa si aad akoonka ugu iibsatid click baan siinay halkan baa ku soo baxday page-kan waa inaad buuxisid akoonkaaga horta markaad iska hubi swap free uu ku yahay waad soo dooratay MT4 nu yahay waad horaad soo aragtay oo soo dooratay fee-giisu waa 604 qiimadhimisna markaad isticmaashidna waynu eegaynaa Somali FX ayaad ku qori doontaa insha Allah kadibna waan eegaynaa qiimadhimista inoo soo baxda wakaas coupon code-keena oo apply gareeyay qiimadhimista inoo soo baxday 30.2 qiimadhimis shirkadaayay waxaana soo baxay 500.8 intaasaad ku iibsanaysaa hoos markaan u socono halkan faahfaahintaada order information ayaad ku buuxsan doontaa halkan waa first name-kaaga magacaaga koobaad haddii aynu cali oo kala gelino halkan aynu last name-ka gelino oo ah Farax halkan email-ka ayaad gelin doontaa email-ka hadaan iska gashano halkanna wadankaaga aad ka dooran doontaa Soomaaliya inagu Soomaaliya ka mid keenayna marka click marka siisid istaad raadinaysaa dad wadanka la joogto wadankaaga ku buuxsanaysaa dad Soomaaliya joogto Soomaaliya keesa wata click password-kana halkan ayaad ka dooran doontaa password adag ayaad kula talin lahaa mar kale ayaad ku celinaysaa password-ka aad dooratay isna halkaas ka dooranaysaa next baad dooranaysaa marka password-ku iga diidaya fiirinaya waxa ka dhiman campaign hore soo saxaynaa kadibna labada password waa inay iswaafaqaan wuxuu kaa hubinayaa in password-kii saxda aad gelisay click hadaynu siinay wuu noo aqbalay hoos ayaynu u soconnaa haddana marka halkan waa akoonkaaga ayaad imka doonaysaa inaad wadankaagii iyo kaarkii aad ku iibsan lahayd ka dooratid halkan sim card-ka wadankaaga weeyaan hadaynu 40 kala ka dhigno halkan waa state-ka kaga noosha Banaadir state dad gobol kale ku qoratidna waa okay hoos baynu u soconaynaa numberkaaga ayaa loo baahan yahay halkan marka numberkaaga waa inaad gelisid numberkaaga caadiga ah ayaad gashan doontaa halkan waxaa loo soo dhaadhacay kaarkaaga Mastercard ama Visa card ama kaarkii kale wax ku iibsanaysay marka magaca qofka kaarka leh ayaa ku qori doontaa adi baynu raahno halkan waxaad gelinaysaa numberkii kaarkaaga aynu numberkaasna iska gelinaynaa hoos haday u soo yeeray degtid in yar halka wax ku qoran expire waa bisha 04 oo kala bisha ka dhig sanadkana waa waqtiga uu dhacayo kaarkaagu 2025 ku qoran halkan waxa weeye saddex number ee kaarkaaga xagga dambe kaga qoran gadaal kaga qoran ninkaana soo kala gelino intaas marka aad iska hubisid ee buuxsid ee kaar numberkaagu inta yahay ee halka waxaad sameynaysaa tick baad saaraysaa saas oo kale kadibna confirm payment ayaad siinaysaa click baad siinaysaa sidaas ayaad ku gadanaysaa akoonkaaga inta marka aad sameysid message ee noo soo diri doontaa WhatsApp-kaaga kadibna waxaan ku daraynaa groupka signalska iyo teamka waa si free aad ku qaadan doontaa insha Allah
akoonka markaad gadatid. Sidoo kale waxaad ku gadan kartaa bitcoin iyo coinankan oo dhan ku wada gadan kartaa. marka adigu haddii aad crypto isticmaashidna waad ka gadan kartaa, haddii aad kaarka Visa card iyo Mastercard mid aad isticmaashidna waad gadan kartaa, waad ku qaadan kartaa. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa. wixii su'aalaad qabtidna commentiga ayaad noogu qori kartaa. sidoo kale WhatsApp-keena waad naga soo xiriiri kartaa wixii su'aalaad qabtid. Assalaamu calaykum.